بسم الله الرحمن الرحيم maanta cashirkan wuxuu ku saabsan yahay conjunctiva cashirkan waxaan uga hadlaynaa kaliya conjunctiva waxa uu yahay marka meelaha structure-kan loo yaqaan conjunctivaha muxuu yahay marka qaybihiisa partiskiisa mataqaan microscope marka lagu fiiriyo histological wuxuu ka kooban yahay functionskiisa iyo waxyaalaha uu qabto blood supply-giisa nerve supply-giisa lymphatic vessels-kiisa waxaas oo dhan cashir kale uga hadli doona haduu ilaahay marka mar walba waxaan isku dayeynaa si kooban oo fudud dadkan ay ku fahmi karaan in aan ugu qeexno haduu ilaahay marka for that reason maanta waxaan qeexinaa bis conjunctivaha hadda cashirkan waxaan ku sharxaynaa muxuu yahay bis marka intaan conjunctiva aan sharxin si loo fahmo si fududna loogu fahmo ugu horeen structures kale oo important ah jiro oo la rabo inay fahmaan si basically loo fahmo ugu horeen issue markaysan tahay qaybtan cadaanka ah isha qaybahan cadaanka labada dhinac waxa loo yaqaanaa sclera qaybtan kale oo dhaxana ee wareegsan waxa loo yaqaanaa cornea midaan baarka isha labadan baarood isha waxa la yiraahdaa eyelids meesha ay iska galaan scleradii hadday aan sheegnay iyo qaybtii dhexe cornea-da ahayd waxa loo yaqaanaa limbus labadooda meesha iska galaan waxa loo yaqaanaa limbus waa sclerocorneal junction qaybtaas ee labadooda iska galaan structureskan reasonka u sharxayno si waxa waaye aad u fahanto hadhow marka waxa aan ka hadlayno waxa uu yahay okay waa kana saddexdii structure sclerada waa tana eyelidkii waa kana isagoo la gadiyay qaybta hoose posteriorkii eyelidkina waa tana waa sawir kale oo very important ah oo hadhow wax badan ka caawin doono marka aan conjunctiva wax ka sheegano haddaba conjunctiva muxuu yahay markaan qeexayno wuxuu yahay waa xub conjunctiva waa xub arag gudbiye ah macnaha waa transparent membrane xub arag gudbiye ah kaasoo ku dahaaran qaybta cad ee isha sclera hadday aan ku sheegay iyo qaybta hoose ee baarka isha posterior of the eyelid scleradana waa tana ishi baarkeeda markii la gadiyay qaybtiisa hoosena waa tana marka xubkan intaasoo ku dahaaran yahay waana muuqgudbiye waa transparent soomada garan waa kana marka kaliya marka si fiican loo arki karo wuxuu leeyahay blood vessels saas darteed markuu blood vesselskiisu dhiig badan soo galo ayaa xubka si fiican loo arki karaa waa kana xubka dhiigan hadda uu dul soo socdo waay sclerada waxa la yiraahdaa waa avascular ma laha wax blood vessels saas darteed conjunctivahan waxa hadda dhiigan uu dul saaran yahay waa conjunctiva haddaba meesha aan idin dhahay limbuska waxa isugu imaadaa la yiraahdaa saddex structure saddex qaybood oo xubnooda isugu imaada isha tusaale aan idin dhaho tan waa cornea-di qaybta daamadooga intuusan cornea kanne qaybtan kalena aan idin dhaho waa scleradi s u bixi aydan sclera okay qaybtanna aan dhaho waa baarka isha waa labadii baar eyelidisk aan dhaho ee isha sooma haddaba qaybtan isku xirayso cornea-da iyo sclerada waa limbuski ilaa un bixi limbuskaas waxaa isugu imaado meeshan waxaa isugu imaada saddex structure kow waa sclerada structure-keedii oo waa tana scleradii labo aan kalarka iska bedelo waa xub la yiraahdo tendinous capsule oo ku dahaaran asagana sclerada laakiin ilaa qaybta dambe oo dhan kaga dahaaran asaga cashir gooni aan ku sharxi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo marka fatiska iyo sclerada mataqaanaa hilib meeshan ku jira fatis iyo scleradu kala qaybiya tendinous capsule marka sclerada iyo conjunctivaha qaybta saddexaad dul saaran waa conjunctiva asagana scleradu ku dul dahaaran yahay soomada garan marka structure-ka kaliya ee u dhaxeeya sclerada iyo conjunctivaha marka wuxuu noqonaa xubkaas
tinka ee aadka caatawga ee la yiraahdo tennis capsule laakiinse meesha tennis capsule ilaa qaybta dambe isha uu aadayo conjunctivaha saanu usoo laabanaa wuxuu haddana cover gareynaa qaybta hoose ee barka isha saasuu u laabanaa marka kan waa conjunctiva jaalaha ah kan pinkiga waa tennis capsule kan ugu hooseeya gaduudkana waa sclera haddaba again waa kana sawir aad u qurux badan wax qaybta gaduudka oo dhan waa conjunctiva gaduudkan oo dhan waa conjunctiva qaybtan waa eyelidki kalarkan ka bedelo qaybtan waa eyelidki waxaan gaduudka meeshaan saas u maraya qaybta hoose eyelidka mataqaanaa cover gareynayo ilaa qaybta hore interior partiga sclerada cover gareynayo waa conjunctiva haddaba conjunctivahu waa xubkaas transparentiga ah ee mataqaanaa muuqgudbiyaha ah ee ku dahaaran qaybta hore interior part of mataqaanaa the sclera iyo posterior part of the mataqaanaa eyelid soo ma jeed qaybtan hoose iyo qaybtan bahasha haddaba waxaan rajeynayaa inaad fahanteen conjunctivahu as a definition macna qeexitaan ahaan waxa uu yahay aad iyo aad u mahadsantiin insha Allah qaybaha kale ee dambe waxaan ku baran doonaa casharada kale soo socda